وأحكام نواكي اللي يسوق بيه سجود هانا عيدو ومقع الشيقية كلن صون نغنية أما مد سندات هالنغضو أما مد بلاد هالنغضو أما مد أسبوعي هالنغضو عيدا قاربا أسبوع كستبا مثلا عيد الجمعة هكذا وأسبوع كسته عيدا قارنا وصنتكي su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan dadku hadda iskaga qasantay gaalka maxaa laga qaadan karaa maxaanse laga qaadanay gaalku waa qof bini aadama oo diin kala haysta maxaa bannaan in laga qaato maxaanse bannaanayn in laga qaato waxaa bannaan wixii manfac ku jiro ee sharciga ku bannaan aqoonta maadiga ah oo kale iyo wixii la mid ah ma bannaana wixii diin iyo dhaqan ku saabsan ee cid gaar ay leedahay in gaala laga soo qaato nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ummadda dambe inay fasaadi doonto oo wuxuu nabigu tilmaamayaa latatabicanna sanana man qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low salakuu juxra dabbin lasalagtumuuh قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ضدك مسلمين تا إلهي وحينا فري صلاة كستا إني نكون عيسانو آخرينو فاتحة الدعاء وقوينا إنه إلهي ويدي سننا وحوي يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحين ويدساننا جدك قمنا إنه ينوهن ونيو جدك النبي يدي صالحين تيدتك ونكسنا مرين إن ربي إنقا إلى ليه جدك قوى اللمي يقوى ربي وعريسيه حديثنا وحكوت المامسة قال هذا ربي وعراضين إن يهود تهي قال هذا اللونتين إن نصارى تهي iyadoo taasi ay qaacidada caamka tahay qofka muslimka ah maalin kasta shanta salaadood oo qura haduu tukado 17 goor oo Ilaahay ka magan galayo jidka qolada inuu maro ayuu hadana nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kuwii idinka horeeyay wadada ay mareen taaka dhudhudhudhu baa raaci doontaan oo haday god masalugalay ama masaagalay galaanna waa ka daba galaysaan buu nabigu yiri وعلى إلهي رسولك يوم يهودي النصارى يعني الصحابة ويقادن كرواية يقول إلهي مالك استكما قنقل يجد كودا هذانا إن لا إله يجد كودا راعي دونتان وعلى إلهي رسولك يوم يهودي النصارى نبغو حكولي فمن ياكل حديث كصحيحين كويالا عدتكو حيسويدين يعني كريسمس كاين إن الحفلة يا ما بنانته إن التهنئة يا ما بنانته إن لقى قيب قطع ما بنانته إن لقيتها ما بنانته أنت إن ما بنانته يا ما بنانا كور من أن سويدين محو كريسماس كويهاي كريسماس كريست ومخلص نبي عيسى وكذا والسيفير مصنع ومقطع على بعضها إيانا معنى هو ميلاد كريسماس وميلاد المسيح أو ميلاد المخلص مخلص كي قورتو دنطي قورتو دشاي عيدها نمانكا كريستان كاهي أما مسيحيين تاهي سيبوكتو داكو قرآن بقول يا فرتن عيدود بك بدني بقول يا فرتن ما المودو سيليبريشن إسلا سمايو أفريق طبعاً باء واوين أفريق طبعاً كتدبا وسي واوين تدبا واوين محاكمة دا مركاه لبدان هدي قردتكو كهدلاني كريسماس كه إيه إيستر كه مد وحيلين ومالنتو عيسى بالشيء مدنا يجو سيدا قبان ومالنتي للدلي سؤال شيء سويدين تلو حيت هاي مركاه ما لا قرنا يا هرت مالنتو عيسى بالشيء
ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso maalin la garanaya ma tahay bible-ku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin ciise qoliyaha qaarkood baa waxay yidhaahdaan ciise wuxuu dhashay sida luuq ku qoran ciise wuxuu dhashay maalin yacni wakhti ay qoladii adhiga raacday habeenkii markay adhiga soo xareeyeen ay warka maqleen waxaa macruufa bay yidhaahdaan falastiin winterka inaan habeenkii adhiga dabadda lagu haynin winterku waa wakhti dhaxaneed marka wakhtigaasi winter ma noqon kara bay u deliishadaan waa halka sheekha diidaatana uu isna ka deliishado timirtii maryan la yidhi ruux timirtu goormay bislaataa waxaa la yaqaanaa inay samarka bislaato xagaaga kulaylka ku bislaataa maadaama timir la yidhi geedkaa timirtaa ruxruxo rutab uu ka soo daadanayo winterka rutab ma jiro haddii la yidhahdo december rutab ma jiro haddaba xagguu ka yimi qoraayadii hore ee qarnigii labaad iyo saddexaad ee wakhtigaa ciise loo nisbaynayo dhalashadiisa ka dambeeyey haba yaraatee wax dhalashada ciise la yidhaahdo kama hadin marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixionka ayay ka warantaa laakiin kama warranto dhalashada in badan aleskandariya origin of aleskandariya nin la odhan jiray oo noolaa qarnigii labaad saddexaad ayaa wuxuu ku sheegayay celebrationska birthday-ga la yidhaahdaa inuu yahay bagan in loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wathaniyiinta iyo baaganimada buu leey waa nin masiixi ah oo qarnigii labaad ama saddexaad nool wuxuu leeyahay dabaaldegga la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yidhaahdo waa baganiska dhaqankoodii buu leeyahy taa macnaheedu waxa weeyaan wakhtigaa meeshaa ninkaasi joogay inaan christmas iyo wax loo dabaaldegiyo waxaasi toona ka jirin sida la og yahay qarnigii labaad ee kristanadii noolaa may dabaaldegi jirin walidaalika baa nin qoraaya oo clement of aleskandariya wadaad la yidhahdo wadaadadooda ka midi ayaa wuxuu leeyahay ciise dhalashadiisa dawaa'ifta kooxaha kristanka ee kala nooca ahi waxay soo brobose gareen waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gedisan waxyaabaha cajabta lena waxaa ka mid ah maalmaha 25 December marnaba kuma jirtaba waa maalmo kale maalmo ay kristanku isku haystaan goormuu dhashay clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamayaa qola waxay yidhaahdeen sanadkii 28aad ee Augustus bishii bakhal la yidhaahdo 25keeda oo u dhigantay May 20 buu dhashay bay leeyihiin sanadkana 28 bay ka dhigeen Augustus wakhtigiisiiya qolo kale waxay yidhaahdeen 28 kaba ma ahayne iyo wakhtiga Augustus toone waa 16kii Tiberius wakhtiga la yidhaahdo ninka la yidhaahdo wakhtigiisii waxaana yidhaahdeen wuxuu ciise dhashay 22kii Abriil qolo kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 15kii Abriil qolo kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 20kii Abriil idan wakhtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abriil iyo May iyo March wax December iyo meesha tani kuma jiraan waxay isku hayaan nabi ciise ma March buu dhashay mise Abriil buu dhashay mise May buu dhashay taariikha kala gedisan bay tilmaamayaan qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25 December iyo 6 June ee 6 January la sheego kiniisadaha kristanku qaarna 25 ay u dabaaldegaan orthodox waa catholic iyo wixii raacsiisan ka dambeeya orthodoxkuna waxay u dabaaldegaan 6 January sidaradeed kiniisadaha barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisadaha galbeedkuna 25 ay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay yawm tacmiid
maalinta ay aadka u weynayeen ay leeyihiin ciise biyaha la geliyo laga soo saaray oo tacmiidka loo sameeyey bay ku beegantahay marka 25 December laga soo bilaabo ilaa 6 January 12 maalmoodba qaar baa dabaaldega wada siday ku timi marka haddii aynu leenahay taariikhdii hore laguma hayo maalintuu dhashay qoraayadii hore kuway qoreen waxay sheegayaan inay ama April ahayd ama May ahayd ama March ahayd xagay ka timi hadda December tan iyo January tani laba theory baa jira way qoraan labada theory mid baa aad u caansan ka aadka u caansan wuxuu sheegayaa 25 December diilnaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beerta god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtigii qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin oo hadda maalin gaaleed bay ahayd wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagay celebrationska birthday-ga oo dhane maxay kuwan dambe u aqbaleen waxay yiraahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay yiraahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluun oo nidhaahna waa maalintii ciise dhashay oo shaqo kristan aan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen aan ku bedelna cibaadaad masiixiya bay yiraahdeen qolada kalena waxay leeyihiin may bisha May ama March ama maalmahan aynu sheegaynaa مثلا 25 March wuxuu ku beegan yahay leeyihiin maalintii yawm tabshiirka maalinta yiraahdaan yawm ciid al-bishara maalintii Jibriil uu Maryam ugu bushaareeyay in ilmo la siinayo waxay yiraahdaan maalinta ilaa iyo December marka la xisaabiyo waxa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu maanu qiimeynay maalintii Jibriil uu yimi baa inta ahayd hadduu birthday-gi hadduu si caadi ah u dhashay inuu December dhalan karo theory-ga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka ma aha 6 ay isku hayaan 25 January ma 25 December ba mise 6 January na waxay u dhaxaysaa maalmaha ay ku muransan yihiin oo ah ma 6 April buu dhashay mise 25 March buu dhashay isla markaana crucifixion-ka iyo ciid al-bishaaru annunciation-ku waa isku waqti ayay iyagu qabaan maalintii loo bushaareeyay isla maalintaas la dilay isla maalintaas uu urgalay dabeetana waqtiga ka mudhashay soo duduub waxaan leenahay ciise goor uu dhashay cidi garan mayso haddaan goor uu dhashay ba cidi garanayn maxaa loo dabaaldegaya waxyaabaha cajabta ah waxaa ka mid ah ee ciise ku saabsan qarnigii sagaalaad خلال القرن التاسع عشر ندانا وحب ما بروتستان كقيبة كم يدوله وبدعو كاتلق سمستي سيدا دراد ديوين مال تالي دبالدقي كنيسة كاثوليك أبا الرديدة يوسيت ربضيسي دقا الله دي إنجليز كده حمري وقتي يشيرين وحلا ممنوعي إن لدبالدقا مال تاس اسكتلاند كون لح بقولي أفرتن كيسيدي لو ممنوعي 1958 كي دوابا لسوء عليي in December 25 دي بيلو دبالدقي كرو ودا كمرايكان مستوطنات كبروتستانتسك راديكال كي هيسن جيرين 1659 يا 1681 سيدا بوستن يوحي لمدا ممنوع باي هيد إن شاء الله 20 ديسمبر لدبالدقو وحانا يو أركيان إنay tahay caado Ingiriis oo foolxun taariikhda markaynu dib ugu noqono markaas masiixiyiintii noolaa
wakhtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxaa cajiiba markaa maharajaan katholigu ay sameeyaane waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan inaanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xaggay ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanska ka horraysay tan disembar maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen wakhtigaasi ay wax bixin jireen kiniisadda katholigii waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen wakhtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 disembar iyo waxa ka wax la bixiyo beri dambe alquruun alwasطaaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxaa kaloo jira wadaad kristan oo armenian oo nicola la odhan jiray nicola ayaa berigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir oo Maraykani gabiyay dabeetana isaga gabayga ku sameeyay ninkan maryaa cascasita ee gadhka cad leh ee maryaa cad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yiraahdaa deeradu ay jiidaysay caruurta intuu wax u qaybiyo habeenkii meesha ka soo ridaa gabiyaha Maraykan baa waadanba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu samaynayo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diin laawayaasha hore ay samayn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo christmasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mida ay leeyihiin waa ciid wathaniye ciid xataa ciise dhashay maaha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahy waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaan an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah buu ilaahay leeyahay allahu alaxadu asamad waxna dhalin layna dhalin waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay haddaba ayuha alxibba sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirta sida manaasigta kale qiblada salaada soonka iyo wixii la mida ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyahy likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun cid walba wakhti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون حنا إلهي قرآن ككولي والذين لا يشهدون الزور كوا آن حاضرين زورك مفسرين بدن باو حيكون مفسرين أيتي عيدها مشركين لا يشهدون بالزور هذه اللي دعوا كوان مرخاتبين لا شيء لكن ما دام أنبأ لقوا قدبين بيلين وحيت المامسة inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qayb galaynin ciid gaaleed ah ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay
عربتي وعيديسة ومحيبة يلي وحيد هذين وعيد أن جاهلية دي عيد الشرني أنصارتي وحكوي لي إلهي وحيدين كبدلي مديدن كخير بدن عيد الأضحى يا عيد الفطر باليدن كبدلي عائشة وحيلة دي قرية أيو صوغلي أبي بكر أي أنه صوغلي يضو الله بشاري يضو هيسيان عيدي عيد المسلمين تا وليستا بمغنيتين بإلهي لبا هاسانا ما يحين horta erayga hees markaa maqashaan inta badan dadka waxa ku soo dhacaya muusigii iyo waxaan la tumayo iyo boodboodka in waxaan heestaa lama yidhaahdo af Soomaali hees haddaad maqasho waxa la yidhaahdaa heestii xoolaha lagu raaci jiray tii ceelka lagaga waraabin jiray tii haanta lagu luli jiray tii ilmaa yar loogu heesi jiray hees af Soomaaliga kuma jirto wax muusig la yidhaahdo muusiga gaalku la socday bigilkii ugu horeeyay la tumo hindidii la socotay ingiriiska wadatay cuudkii ugu horeeyay la garaacana kuwii cadan ka yimi baa la yimi dhaqan Soomaaliyeed ma aha wax la tumaa haddii laga maarmi waayo qola durbaan haysatay haddii laga maarmi waayo laakiin kuma jiro dhaqanka Soomaalida waxaan la yidhaahdo idan haddaad hees maqasho midhaha la tirinaya laga warramaya af Soomaaliga midho wasni leh oo noocaasa laga warramaya عائشة وحيلة ذي مركها لبضة هبلود مناي هين كوا هاسة أبي بكر باوحولي أبي مزمور سيد رواية مسلم تلمامسو رواية بخارينا مزامير بيشيسة أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مزمار الشيطان بقول النبي محمد شوقه وحنا بكوكوي مركها مالن عيدنا وهدي أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا إذا المسلمين لما الموضوع فرحان وهاس قاطان وباء بنان ولا بدأ عيدون أما وحكى صهرة إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا ابن أبوه عيد ولي عيد بيلاده ما لنا يفرح دو بود دو بيلاده أنك عيد يدوى طنب نبوه عليه الصلاة والسلام ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نبي عليه الصلاة والسلام ما دام ويلها وهذا عيدنا وحي شيء يسا تكلينا أنا عيد وهاي المسلمين حديث كهوران تلمام إننا وحنبي تلمام إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما وعيدها ضدك كلك وكخير بدن أي إلهي دنكو بدلي إن لك قيب قال الداعي إن بقى النبي قويمي وحولي وحن كنا دري بوانا ما شاء الله يلاحظه إن نقال قاله من قصد النبي قوله هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد صنم صنمات الجاهلية دول عبد شريمية كويا لي قالوا لا ما يبي هذا فهل كان فيها عيد من أعيادهم بنبولي هذا ما وحي هين مالي كل عيدان مركز الله يقول لا ما يا هدانا إلا بضع منا هين بنبقول الندر قاقا أوفي سؤال شيء سويدين تلا وحيت هدي وثن جاهلي وماشي كل شري لقول عيد مايو كريسماس كو وثن جاهلي وهانشري ومر لبعض هدي عيد جاهلية هيد للسمين مايو كريسماس كنا عيد جاهلية بوها عيد ضد كان إلهي رميسنين الرميسنة أو ثانته عيد دودي بيهيد كريستن كوي كغدا يدينون way la qaateen idan waa bidcaa كريستن kuna soo kordhiyay fi shariicana kuma banaana saadaradeed culimada muslimiinta waxay ku tilmaamayaan inaanay marnaba u banaanayn dadka muslimiinta ah ciidaha diimaha kale inay ka qayb galaan كريسماسكو إما عيد كريستان إنه نقضه هدو نقوم ويانا عيد وثني بنقضه كوان إلهي عابدين وثنيين وإسكندنافيين كي جرمل كيو آلي هذا كلا عابد شري عيدو دي أما عيدي كوي كريستان كان نقضي النصارى لبدا عيدود مدنا ما بنانا دينهان إنه كغيب الله عيد وثنينا ما بنانا عيد كريستان ما بنانا
سادرادد النبي وحولي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيحين كيالا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أنك أحكوي دنبيي حق وقتك مركا لقايقو هرية مالنتا قيامة وجنة وغهر قلي حق منزلة مركا لقايقو بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فسيا شيب النبي يقول يجا كتابك هرطايا لسيي أنك أنا كذبنا لسيي فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وجمعة النبي يقول عيدوا دي لسيي اسكو خلافين قرن وايه سبتي أحدثونا ما يهينه جمع بعيد أبو النبي يقول إلهي بأن نوهنوني فالناس لنا فيه تبعا ضدكو أنك أي خدم يتبع نوغيون وضب الصعداء من النبي يقول اليهود غدا ونصارى بعد غد إذن إنه يتبع النغنا ما بنانا جمعة عيد نوء سبت نوء ماها عيد الأضحى عيد الفطر با عيد نوء كودك لا عيد نوء ماها سيدا وقيد أيها الأحبة قال استعليسين تاني قال قد يشضتني دينتكم ما بنانا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وحان النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم نك الضاد سوء كيسية أي سوء كيسية واحد دين تان كوبنانين waxa iyagu caan ku yihiin Christmas iyaga baa Christ baa way u bixinayaan saad uga qayb gashaa wadiin sadin kale ciideedu ciida wa cibaada sad cibaada diin kale u samaysta sida ugeeda ayuha la xibba nabigu wuxuu leeyahay khalifu al-mushrikiin war mushrikiinta khilaafa وعقيدة هي دينته هي شريعته هي كخلافة أعياد وحي كم تهي وحل اسكو خلاف سيء النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور وروحا إذن كدقيا بدعة عصبية مادة فإن شر الأمور محدثاتها بدعة مادة وحا وشرك بضان لهم محدث وحا بدعة كمدة وكل محدثة بدعة كستانة محدث شيء كستول سود الريين وبدعه هدي بدعة مسلم كسود الريين حديثك وكدقيو بدعة كريستن كان كور إلى 25 ديسمبر وبدعة مسيحية وأوثان تيكسون نقليان وابتداع والله يمادين بدعة مسلم بان لغوه قلينا ما بدعة كريستن بان مركا لغوه قلانا حاد غريب وأمرك ضدك مسلمين تاسا يسقدر سمين محا حلالة هي محا حارانة وحلميدا عيدها كان نيو يير بالميدا سنة كعصب سنة كان عصب جاني وريد لشيغيو وهرين جوليوس وقتي سيبالو دبالدغي وقتي وهريا و 45 بي سي اللو دبالدغو وقتيدي دحلو ما دبالدغي جيرين وقتي دنبا ديب لو سو عليي كالندر كان وا كالندر رومان كالندر رومان اسكو وثنيينتي هوري جوليوس نوا بقركودي وانك بيشان جولاي لا يراهdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyay Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabo bilaha kala qayb ka midina waa ilaahiye magacyadood March waa ilaah dagaalka ilaahul harb bay March yiraahdaan waa ilaahiye magacyadood qaybaha dambana waa tiro September October November December Sep waa bishii toddobaad Oct waa bishii sideedaad Nov waa bishii sagaalaad Des waynagan dasi maliya waxa sheegna waa bishii tobnaad oo hadda maxal 12 ka dhigay maxay soo weydaariyay boqoradan bay soo weydaariyay Julius baa 7 maalmood xagga hore kaga daray oo January February ku soo darsaday
kadib Gregory boobkii la odhan jiray ayaa Julius waqtigiisii bish sanadka waxa la xisaabin jiray 365 iyo 0.24 waxa la ogaaday in xisaabtaas ay qaldantay qaladkaasi wuxuu keenayaa sanadkiiba dhowr minute 12 minute inay soo baxaan oo equinoxiska marka la xisaabiyo solar systemka inuu qaldan yahay saadaradeed ay waxay yiraahdeen hadda waxay xisaabiyaan ay 365 iyo 0.25 kun shan boqol iyo 280 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 Oktoobar khamiis oo bishu afar tahay jimciga ku xigay ayuun la yiri waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday 200 sanadood in ku dhadhow buu diidanaa ingiriisku 1752 meelahaasi ayuu isna iska aqbalay marka isaga waqtigiiba uu ku sii kordhayo 12 maalmood buu isagu guuray meelahaasi ala kulli xaal waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaa ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay haba yaraatee ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wardiinta wardiin dhamaystiray baa ilaahayna leeyahay muslimiinta dhibtana qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen bulsho noociyad tira badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badan ay qabaan مثلا ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa dhib maaha waqti aan ahayn Christmasyadina waxa kan waa la siin karaa maxaa la yiraahdaa hadiyad waa hadaaya waa laga qaadan karaa ama tahniyada ku saabsiisan ciidaha ilaahaga inuu dhashaan kuugu tahniyadeynaya dee ma banaana Christmas day inaad ku tahniyadaysaa ma banaana wax macsiyo uu ku jiro inaad ku tahniyadayso idan tahniyaadka la samaynayo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan Christian Yahuud waxay doontaa ha ahaato ma banaana la hadiyad bixinteedaan banaanayn wala tahniyadeedaan banaanin sida jamaahiir ulama u badan yihiin wala ku dhaqankeedaan banaanayn dhaqamada iyo diimuhu waa inay kala socnaadaan waa inaad dhaqan gaaleed ka mid noqonin qof muslima tahay mumayyiz bini aadamku isgumaystaa laakiin waa inaad xor ahaataa oo diintaada aad xor u ahaataa waxaan ku soo koobayaa waqtigu uu kooban yahay waa inaynu kala garannaa maxaan qaadan karnaa oo dadka kale ka qaadan karnaa iyo maxayna ka qaadan karin dadku waxa anfaca imika kama qaato مثلا ساينسسكو أنفع بولي ويرين دتك أنت كبرته لكن أنت ضفورة حيرته أما سروالك دلدلوشته أما فيرها قاوسته أما بروك صاحرته أما كبر هذا أنت حماها كقدر والحمو فدودي سال لغاته حمه وحبا وقت بدر وباهنا عاود أنت بس بين كريسة أما وحا قيمها له وحيبه هين وقت يجهد يديد إذا وحي اللي يريك قاطنا كما قاضنا وحي اللي يريها كقاضنا أنا وين كقاضنا وعقل فورر كمسلمين تكون عاي وحي اللي يري سوقاتنا وديدين وحي اللي يريها كقاضنا أنا وكقاضنا يا إذا أيها الأحبة معكم سوكوبي يا مال مهنا يا موثنين ما هكوصل استنادان مدي مكلا هكوصل استنادان مال ما مسلم
iyo diin islaam ku salaysan maaha sidaa awgeed in laga qayb galo sinaba uma bannaana sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam